saxmadani iyo sawaxankani waa suuq weynaha ganacsiga Islii kaas oo ah suuqa ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika waxaana saameyn dhanka ganacsiga ku yeeshay cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha maadaama alaabaha suuqa lagu kala baayaco intooda badan laga keeno dalkaas dalka China ayaa caalamka u dhoofiya adduun ganacsi oo gaaraya 4.62 trilyan oo dollar halka dalka Kenya oo qayb ka ah wadamada xiriirka ganacsi la leh dalka Shiinaha ayaa lagu qiyaasaa inay isweydaarsadaan ganacsi gaaraya 5.8 bilyan oo dollar taasoo ka dhigan in boqolkiiba 17.2 ganacsiga dalka Kenya uu ka yimaado dalka Shiinaha tan iyo intii uu dilaacay cudurka coronavirus waxa si ku meel gaar ah loo joojiyay duulimaadii tagi jiray iyo kuwii ka iman jiray dalka Shiinaha si looga hortago in cudurka coronavirus uu soo gaaro dalkan Kenya socdaal kooban oo saameyn ah qaatayna saacado dheer oo ku tagnay suuqa ganacsiga Islii ayaan kula kulanay qaar ka mid ah ganacsatada halkaas ku ganacsada iyagoo nooga warbixiyay saameynta uu ganacsigooda ku yeeshay cudurka coronavirus aad u weyn haddii xoogaa saameyn baa ku nagu yeeshay badana alaabta waxaa ka keeni jirnay wadanka China marka coronavirus markuu dhashay badana saameyn badan oo xagga alaabtii la keenayay iyo cilad oo cudurkaas inuu faafo laga baqaayo saameyn aad u weyn baa ku yeelanayaa niyahu waan dareemaynaa culays badan maadaama maxalli jir meeshii wax nooga imaanayay iyo alaabadii aan gidi jiray awal dad alaabta dibadda ka imaato oo halkan lagu sii gado oo maxalli la sii bixiyay ahayd waqti walbana loo baahan yahay shay fashion iyo wax cusub la iskaga baahan yahay alaabtii ay istaagto oo hadda maxalli alaab cusub la waayo hadda durbo way bilaabatay wixii hadda ka horeeyay alaabadii way soo galgalayeen dhinaca kalena waxaa jira ganacsato Soomaali ah kuwaas oo alaabo iyo agabyo ganacsi uga xiran yihiin dalka Shiinaha isla markaana aan kala soo bixi karin waqtigan sida ay noo sheegeen alaabo saan waxay sida dukaankeena camal alaab ma wataalo alaabihii store ku jireen saaid u dhamaadeen marka aniga taasna dhibaato weyn oo geysatay sida dukaankeena camal booskeena tigida u jirnaa inoo baxo balantiisa ahay maadaama cudurkaas oo soo dilaacay dib u baaqday alaabihiina oo xagga nooga dalbanayna iyagana xayiraadey leeyihiin way ku xayirmeen meesha coronavirus oo ah cudur ka dilaacay dalka China isla markaana dhul dhigay kumanaan ruux oo kalifay in la karantiiro dadka u dhashay China hadda malaha waa cudurka loogu cabsida badan yahay caalamka way jirtaa wax badan way xayiran yihiin sidii hore hadda wax uma imaadaan laakiin insha Allah wax walba way furmi doonaan waxa dib nagu hayay coronahaas in koobaha nooga soo dhaxbaxo koobiya soo iska qaadnaa corona ama in ku dhaca isleena saameynta ganacsi ee sababay coronavirus ayaa si guud iyo si gaar ahaaneed looga dareemayaa saylada Islii oo haatan ah baa mushtarka ugu weyn bariga Afrika Farxaan Xukun Xuseen Soomaali Cable TV magaalada Nairobi